السلام عليكم أصحاب الأمانتين سود وهذا استعمال وحيابهن حتى الهرو استعمال جتنا توجي أتم مقالكم حنكون بردنا إن شاء الله دور وحيابود وهدي استعمال شو أما سميسو أي خاصة تاي إن الزلحة توجسو سود وهذا مرة أصحاب الأمانتين ولا سلام حتى أنا قاعد صبتاي ما قاعد يفتح مرعلي وحنا سكر علي قاعد يفتح kusoo dhawaad channelkayga Motina Lifestyle channelkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee aad boqol ka reeriso muuqaal ku saabsan lifestyle noocyadiisa kala duwan hadii ay tahay style-ka fashion-ka groomka dressing-ka iyo waxyaabaha kale soo raacaba maanta waxaan kugu bari doonaa muuqaalkan afar waxyaabood oo aad isticmaasho mar kasta oo ay tahay khasab in aad joojiso isla hadda tip number 1 suunka marka uu ka dhamaado ama in daa isticmaasho iska tuur dhowr wax ka badan isticmaasho suunka lagu talagalay way refresh maya suunku waxa uu ka mid yahay labiskaaga marka uu ka dhex muuqanayo kuwa loogu hor arki karo waxa uu ka dhigay sirkaaga mid tiijiso ay aad u hooseyso suunka marka uu intii uu ahaa asal ahaantiisii uu ka hoos maro oo wareeraha ka bilaabo inuu ka fiiqfiiqmo ama ay ka soo baxaan dun ama hadii aan lahayn suunkaasi dun uu jilco quality-giisii uu ka guuro waa xilliga ugu habboon ee ay tahay in suunkaas aad iska tuurto mid cusubna soo iibsato hadii sida aad ugu soo xidhnaato waxa uu ka dhigay style-kaaga mid aan isku dheelitirnayn nafsad ahaantaadana aan faacsanayn isku day suunka markaa isticmaalayso inuu noqdo suun qurux badan talama waa khasab waay tip number 2 isku day in aanad mar labaad isticmaalin ama marka uu ka madho aad iska dayso shaarka raqabada tuu ka madho ama gacmaha ka refreshmo oo ay waqtiga loogu talagalay in ka badan isticmaasho iska turbaraado ana u soo xiran dibadda shaarka sida aad u xidhnayso in raqabadiisu ay gaadho in ay marato oo duntii dibadda uga soo baxdo waa laga qurux badan yahay fadlan hadii aad awoodo soo iibso shaar kale waayo shaarkaasi waxa uu dhaafay muddadii loogu talagalay waxaad ku ogaan kartaa shaarkaasi in uu soo maranayo waxa kala tegayo oo kala durkayo duntii shaarkaasi ka samaysnaa sidoo kale waxa uu sameeyay shaarkaasi midab kasta lahaado in colorkii uu originalka ahaa color ka duwan u yeesho raqabada oo aad u cadaata dabarka oo midab kale ku sameysmo hanki originalka ee shaarku lahaa gacmaha duntu ka fiiqanto isku day in shaarku hadii wax calaamadahaas aad ku aragto aan dibadda ugu soo bixin iskana dhigto ama aad iska tuurto tip number 3 isku day in aan isticmaalin dharka loogu talagalay in la xidho xilliyada gaarka tip number 4 qodobka ugu waalan waay isku day in aan isticmaalin sharbaadkaada xidhanayso hal mar wax ka badan sharabaadadu waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu horeeya ee labiskaaga tadiisa kor u qaadaya waa in ayna sharabaadkaas aan lahayn wax uskaga ama aan dheerti ahayn waayo hadii isaga oo uskaga aad xidhato waxa uu ku keenayaa kabahaagii in ay sameeyaan ur taasoo saameyn ku yeelanaysa kabahaaga marka aad iska saarto hadii ay guri tahay iyo hadii ay goobo kala tahay in dadku ay ku karaahaystaan sidoo kale labiskaagana aad buu hoos ugu dhigaya isku day ugu yaraan in aad soo iibsato 12 xabo oo sharabaad ah oo kala midab duwan in marka uu mid uska ka noqdo ama dheerti uu ka noqdo aad u xidhato kuwa kale ugu dambeyn waxaan rajaynayaa in muuqaalka rekoboron ku anfacay hadda kadibna aad taqaano ama iska diidanto waxyaabaha aad hore u isticmaali jirtay ee khaladaadka hadii muuqaalkan ku anfacay fadlan like noo saar adiga oo mahadsan sidoo kale muuqaalkan comment-ga noogu reeb qodobka ugu muhiimsan ee uu channelkan u sameeyay yahay fadlan hadii aad iminka daawanayso oo xakan soo gaadhay fadlan subscribe saar channelka saxaabta dhamaantii waxaad igala socon kartaan social media platform ku leeyahay gaar ahaan Instagram-kun aad ugu badanahay oo aan soo geliyo 10 muuqaal video ku saabsan style-ka fashion groomka diriska iyo waxyaabaha kale soo raacada waxaan ku rajaynayaa maalin wanaagsan habeen wanaagsan casar wanaagsan goor kasta ay ku tahayba fi amaanillah